qaramada midoobay ayaa soo gaarsiisay dowladda Soomaaliya dhambaal isugu jira hambalyo iyo bogaadin 27 sano kadib. Waa markii ugu horeysay ee qaramada midoobay ay soo gaarsiiso dowladda Soomaaliyeed dhambaal loogu sheegayo shaqada wanaagsan ee ay qabatay. Waxay ka dhigan tahay geedigii sahanka iyo barwaaqada oo adduunku aqbalay. Mandiqada Geeska Afrika ee dalka ku yaala ee Soomaaliya ayaa mulkinaya mansabkii dunida ay ku lahayd xilliyadii dhexe. aaminaada maalgashiga Soomaaliya ayaa korortay. Sahanka shidaalka iyo macdanta ayaa mar kale ina hodmin doona. iftiinkii nabadda Soomaaliya ayaa xoogaystay, waana sababta caalamku uga gaabsaday faragelinta siyaasadda Soomaaliya. quruumaha midoobay ergeyga u qaabilsan Soomaaliya wuxuu ka nastay xalinta khilaafaadka iyo hardanka awoodaha hogaamiyaasha Soomaalida, waxaana uu aqbalay hadafka Soomaaliyada cusub. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoomay ciidamo u badan dhalinyaro kuwaas oo kamandoos ah, tababarna ku dhameystay saldhigga Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho. ciidamadan kamandoosta waxay ku hubeysan yihiin hubka gaarka ah ee ay isticmaalaan militariga dalka Turkigu. dowladda Soomaaliya guulaha ay soo hoysay ee caalamku ku amaanay waxa ugu horeeya cafinta deymaha Soomaaliya, dhismaha ciidamada qaranka, la dagaalanka xoogan ee lagu jiro musuqmaasuqa iyo guulaha waaweyn ee laga soo hooyay siyaasadda arrimaha dibadda, kuwaas oo ay ugu horeyso soo siideynta maxaabiista Soomaaliyeed ee daafaha adduunka ku xirnaa. muwaadin, waxaad awood u leedahay inaad dowladnimada xoojisid adigoo jooga gurigaaga. taageer madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre una sheeg inay hayaan shaqada ugu adag adduunka. way u dhafraan mana nastaan, iyaga mudan duco iyo ammaan. daadihiyaasha qaranka muuqaal ahaan 5 sano ee u dambeysay ciidamada xoogga dalka way ka duwan yihiin sidii hore. xarumaha tababarada ee ciidamada xoogga dalka waxaa ka dhex muuqda macallimiin Soomaali oo aad u diyaarsan inay soo saaraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo awood u leh inay gutaan waajibaadka qarankooda. dadka waayjooga ayaa tani ku tilmaamaya in Soomaaliya awoodeedii ay waqtigan dib u soo laabatay, waxaana ciidamadan ay bedel u noqon karaan ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya in ka badan 10 sano.